والله إلهي عافمادي ما وين لكن كوا بدل بالو فير لي عافماد كيga إيشان كويلا waa 25 jir 3 jeer guursatay iyada oo qabta xanuuno aysan u qarin kuwii guursaday balse dayacay markii ay la guri galeen kadib ladan maxamuud axmed ilinta ayaa ka qubanaysa mana faraxsana waxa ay ku nooshahay magaalada Qardho oo ka tirsan dhulka uu ka taliyo maamulka Puntland hooyadeed way geeriyootay aabaheedna waa da qudhiisu waxa uu ku xanuunsanayaa Hargeysa oo Somaliland xarun u ah kaligeed ayuu awlaad ka dhalay ladan iyadoo aan qangaarin ayaa si qasab ah nin loogu guuriyay maadaama aysan gaarin lahayn garaadkii guri dhaqidda iyo in wax laga dayatoona isfaham waagii halkaas ka dhashay ayaa bilow u noqday nolol mugdi ah oo xitaa gaarsiisay in jirkeeda dhaawacyo loo geysto waa sida ay ii sheegtay xanuunada ay qabto oo sababay in 3 jeer la soo furo oo ninkii guursadana uu ka cararo iyo daryeelka hadda ay uga baahan tahay Soomaalida adigu aad ku jirto ayay inooga sheekaynaysaa ka raali ahaada haddii ilinta ka qubanaysa ee bedesho dareenkiina Soomaaliyeed oo in badan waligeed aan hor fariisan kaamiro laakiin maanta aadanta iyo duruufta jirta awood ay qabsatay inay soo fariisato in badan baahiyaheeda qarsanaysay qalbigeeda ku qarsanaysay qofku waxa muhiim ah inuu jirka ka qurux badnaado inuu qalbiga ka qurux badnaado laakiin qof walba wuxuu dareemi karaa baahida jirta markuu qof soo hor fariisto kaamiro aniga waxaan ahay gabar sanadkii 5 aniga waxa kula jirta hooyadii Allah iga qaaday aabahay isaga xanuunsan wuxuu ku noolyahay Somalilandas kaliya awlaad iga dhalay family aniga maanta jooga dunida ma jiro ama wax taraya marka waxaan xanuunsan tahay ama murugeysanta ama dhibantahay waxa kaliya kula wadaag dhibkaaga oo qofka adamganaya ama jirkaaga runtii in qalbiga jirka laga qurux badnaado wax wanaagsan in qalbiga laga qurux badan yahay aniga maanta waxa la noolaa sokor waxa la noolaa dhiikar waxa la noolaa neerfe waxaan ay qofta kaliya maalin 3 dhacda ilaa ilaahay intuu qoray maahan alxamdulillah dunida waa ku samaysanahay imtixaanka ilaahay uu keenay ilaahay caafimaad ima waayo wallahi ilaahay caafimaad ima waayo laakiin kuwa badan baa lagu fiiriyay caafimaadkayga إيشان كويلا waxaan iga codsanaya 3 kuul baan Soomaali noloshayda mid walba waxa uu bandhigay xaaladda ku jiro mid walba uu soo dhaweeyay intuu ay guursan way ugu yiraahday laakiin maalinta noloshayda gudaha u galay waxay igu noqotay noloshayda caqabad markaan sugay farxad markaan sugay garab istaag 12 sano noloshayda kamid maanta 12 sano ilaa ay maanta noloshayda farxad ma arag تقرر مدح يكون ياله وح يجيس ويجلد وحنا منطقة أنا دعيجيس وهذا سامي كي كمل الحمد لله إلهي بقى يقرأ إلهي هو يقرأ إني أنا كرتة وإلهي يقرأ إني مسلم كرتة لكن قلبت هلك وح أصوف فريستا أنا بقى إن ده هي جماعة دايرته وي إن ده هي وجه كذا ساسوي وجه قرب بلاه ما ترى والله مصهبة ترى اللي أنت يبدأ إنسان وإن قلبي كده إنسان waxa laga yaabaa kuwa ila mid aniga inay habeenkii farxad ku soo hada aniguna ilmo ku soo hado way maanta kala galab adduun way boonti wan aankinin ku gato maasto super bala nool ikar bala nool neerfal ee kaaga saas u daadanay mid soo dhacay habad baa gacanta ay ka dhacday halka habad baa gacanta halkaas laga soo saar jirkayga saas u noqdo barbaraha madmada bararkaas way jirkayga u noqdo alxamdulillah oo ku qanacsana ilaahay u fursad ii keenay ugu madacnani بين آدم يعني واحد يمتلك لكن أما أنت مش تقيسك حولا كل شيء قيسنا ما يستو قفت ظروف يسمى بها حولا ما يستو مليه قفنا قف خمسة مرة قف ولا بعود بين آدم أو الدنيا وكلنا نروح ورا قف عاف مع القمر إلهي رب سبحانه وتعالى بين آدم كدوش كسنة لكن درهم في قلبي وله كل بدوي ما أنت واحد ولا شيء صون عليك إلهي بنا صون معنا جود اللي مسلم بنا إلهي باير إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إلهي باير فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ما هم ولا كم كل هذا شيء أيوة كسوهم في الصلاة يصدق الله ربح ولا كعب ما أنتم حنا ولا لي وكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهاي نيجا عصنية إلهي درتي بوجه الله قبيل نيجا عصنية وصل معنا نمو إلهي درتي وهاي نيجا عصنية ما أنت أنا قرب ولا نمو في رسالة ما دام أنتم ممكن ولا نبشرون وغير كبرنا إن إلهي رب سبحانه والباوث تعصل لي
qof walba dunida uu ka tagay iyadoo buuxda oo sax u buuxda maanta awlaad ma haysto aan ku indho kusho xanuunkaas qof walba iga reebay maanta gabadhay waa shay aad saajata laakiin maanta qof walba uu isoo hanqal taagaya quruxdeeda markuu arko laakiin qof dareemi kara qalbigayga ma jiro waxa ku jira marka insha Allah qof walba ilaahay oo qulubtiisa qof walba qalbigiisa ilaahay wuxuu ku jira uu rumeeyo أنا مركب وحارة بينا ولاتين بس ولاتين ماذا من ولا إلا قيب ستة ما دام أنا أخف ليكري السكر لنا استرس أو بحنا هذا استرس على نولاي وحين جرب أجرب وحين جرب ولا لم وحين جرب أسلاني من هذه الحجرة وحقيقة قبتان بوجه لا واي ما عنده حقيقة قبتان أوبها إذا كنا بنركب معنا بهذه سنين كأوبها أفضل بمان توصل تحصله وبميل وياله واي الدنيا ذا أيام إسكاكوبا وأيام معدودات قفنا وسنا دون كان وسكواري هذا قف على النبي محمد بلغوا إنك ميت وإنهم ميتون ترى المركب حبر أنت ما تقول ولا شيء أو المين الساعة أو أدونك كقول النار أو ما عسوا ما علينا إسلامي ما كقول ولا طا يا ما أنت وأقرأ يا ضد ما حدا يا ما محمد فيسبوك وهذا بس تشوف في الميديا لكن دبعت إيه ستبدلين بكرة أنا بدلين بكرة أنا بدلين بكرة واحد دخل وجهي كذا واجد من بيته ويشتغل يمشي يقول ما أنت أودي مش يقدر وإذا أود بدي مركب الأصحاب إلى هدرتي وها نختار كتبه يجي نختار مال يجي أنت تاس بدأت إسلامه ومعاونات ومحسنينات اللي هدرتي إسلام كاس الحلا بحا أنا أنت سعني قاعد بفضل قف قلبي جيسي كم بتوجي مكره مركب داو أنت مركب بروجرس أنت الدنيا ولا مركب بروجرس أنت وكل كلية لكن مركب قصر يسوع قف والبا وكل قصر يا ونكل دول عطيني لكن مجرو حقيقة مكا أويني قفل أويني ما أنت مصابة ما أودي كرسول سكرتي ويدا عسى ويك عسى وحاسكك بحي ما أودي قبل على نور ما هقف أهلي مقلا نور إلى هيدرتي ولا نور كلاس بيا ما أنت ما أودي كر مركا ولا عليها بفضل إلى هيدرتي وحكا إني مرة وما أنت والله هو بدل بعد رجل هلا عاوي أنا أعرف ورياش وبينتي تيفي أنا نبكي قرطني لكن وقرصي ويا حقيقة مرك إلهي درتي بوجه الله وهي وقبت بوجه الله يقول أنا أمر يقرأ هذين قبل يقول هذين الصومال النبي إلهي درتي ما أنتم حين يقرأ إن شاء الله جزاك الله ladan maxamuud axmed oo ilintu ka qubanayso waxa ay bulshada Soomaaliyeed kaga baahan tahay caawin degdeg ah si nolosheeda ay farxad u hesho maadaama ay noo sheegtay in sidii ay u qaan gaartay aysan helin wax farxad ah